deegaano badan ayay ka dulqaadeen khawaariijta iyagoo kaashanaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana ka mid ah deegaanada amniga iyo xasiloonida ay ka abuureen Warciise, Qoordheere, Gaaleef, Bakajax iyo deegaano kale oo amnigoodu hadda uu yahay mid aad wanaagsan. Dadka aan ka hadlayno waa ciidamada dib u xoreynta ee ku sugan deegaanada aynu soo sheegnay horeyna loo oran jiray macawiisleyda oo hadda jilibku u aastay ciribtirka dhiigicabka arxanka daran ee khawaariijta ah. Gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Meer Makraan, gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Maxamed Cabdi Sheekh Xando, gudoomiyaha maamulka degmada Jowhar Cismaan Maxamed Mukhtaar Baari, duqa magaalada Maxamuud Bariise iyo Korneel Masdile ayaa kormeer dhiirigelin ah iyo adkeynta amniga ugu tagay ciidamada deegaanada hore aynu soo sheegnay ku sugan, gaar ahaan deegaanada Warciise iyo Gaaleef ee gobolkan Shabeellada Dhexe. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa marka hore hadallo soo dhaweyn ah u jeediyay mas'uuliyiinta dowladda ee halkaasi gaaray. dhalinyartana waxaan leeyahay nin walba oo qorale ninkii guriga jira waa la ogyahay, ninkii joogana waa la ogyahay. aniga hadda haddii la raad raaco waxaan ka mid ahay nimanka ceelasha leh. aniga maalin dhaweeday ninkan taliyaha shaalayda wacdaan been la waa ii yimid wuxuu igaarkaaga iyo qoragaa laga rabaa. waxaan idin halkii gaaran hees dhahay ceelkoo wardiyahay dhiblaabahe ma yare xaajir waa la rabaa. waa huru waay shantii maalmood oo jiray Warciise anaa wardiyo ceelka ka ilaaha ka ahay. marka waxaa la rabaa biriga muujeedaa dadka kale oo aniga ila mida oo ceelaleyda ila ahna in qoryahoodana la keeno igaartoodana la keeno waa la rabaa. waa ismaqlaynaa horta waxa wax dhib la naga qaado way khayrana noo furo yar iyo weyn inaan isla shahaadno isla on odaya igaarba isla roogsano aan horta rabnaa. dawladda khayr la siiyo, dawladda waxay wada ma karno. ciidanka waxa waaye horta inuu dadaalo Allah ku dilo, dawladdan inay daasho Allah ku dilo, cadawga la dul qaado. way khayrna Allah noo furo, way khayrna Allah noo furo. waxaan waaye ninka hawshiisa ku hurdo usubay in qodhumi doontaa yaan hawsheena ka hurdin, hawsheena isla qabsano. khayr Allah siiyo ciidanka. marka shabaabka qoryo wata inaan ananka dhimashadayna gacanta kuma inaan asaga intoona dilin aan dilno, intoona aragno intuu bil mataana wadanka inuu soo gelin aan ka hortagin aan ka nagal raba. dawladda maanta ugu horeeyay madaxweynaha Soomaaliya halka state-ka iyo dhammaan inta ka hooseyso wax alla waxaan cuni lahayn, waxaan cabi lahayn, waxaan ku ridi lahayn ay kana la daba taagan oo dusha kala taagan. Gudoomiyaha maamulka degmada Jowhar Cismaan Maxamed Mukhtaar Baari ayaa sheegay in ciidamadan ay mudan yihiin in la boogaadiyo isla markaana lagu dhiirigeliyo ciribtirka arxan laabayaasha. waa boogaadina howlgalka bariyahan ka socdo ee lagu ciribtiraayo khawaariijka Soomaaliyeed ee baabi'iyay cadawga ummadda Soomaaliyeed, cadawga Ilaahay. waxa waaye waxaan leenahay Ilaahay anaga baabi'iyo anagoo iskaashanayna magaciisa ay wax waliba ay ku hagaagi karayaan. shacabaan ahay, xaasan ahay, caruuran ahay ma yaqaan askariyaan ahay, madaxan ahay, gaalan ahay ma yaqaano. cid kasto maxaan ku raayto nool ayuu u socdaa, nooli kasto ayuu rabaa inuu baabi'iyo. marka la dagaalankiisa xaqay nagu tahay adduunyo aakhiraan ku moodayna hadduu al yiraahdo. Korneel Masdile oo ka mid ah saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya isla markaana maalmihii aynu soo dhaafnay ku sugnaa furmaha hore ee dagaalka ee gobolkan Shabeellada Dhexe ayaa ciidamada ku boogaadiyay howlgallada ay ka wadaan deegaanada gobolkan Shabeellada Dhexe. horaan u dardaaranaan u maleeyahay hadda maartay hadalha ma laga bulshada waxa leeyahay ka rabaa inaad waxaad joogteen goobtii aan idinku talagalnay ragiina Gaaleef. waxaan rabnaa inaad halkan saldhigiina ka dhigatiin caradan kalena waxa dhilqaha ku jiro xawaay guglaha laabka hore in laga soo filgaal ee laga soo saaro la idin ka rabo. caradan hadda deegaankan si gaar ah hadii aad maartay degantiin waxaan u maleeyahay marka qaniinkeeda inuu cayntaan u maleeyahay. Gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Meer Makraan ayaa dadka deegaanka ugu baaqay in hubkooda ay soo qaataan isla markaana ay garab istaagaan ciidamada dib u xoreynta ee ku sugan deegaanada gobolkan Shabeellada Dhexe. inta hadda magaaladan ku joogtiin waxa laga yaabaa inay gabdho banaanka shaah soo dhigtaan ay miisasha ku leeyihiin oo laga ganacsaday laga yaabaa oo shaah idinka gadahayaan. shabaab ma gada jireen, war qof wax ka cunayso Ilaahay abuurta ma jirto. waxa oo cunay asaa cunay adoona ka raba wuxuu ku dulaysaa adoo kugu dulaysaa
wuxuu ku dulaysaa gabdhaynoo ku dulaysaa qof kastoo anaga nimada ku dulaysaa ma waxaasaa loo dul qaadan karaa marka waxaan idinka rabnaa war sida aad u soo baxdeen waaba u jeednaa inay idinka go'antahay waana ognaa inay idinka go'antahay laakiin waxay u baahan tahay adduunyada sabaray u baahan tahay adkaysi badanay u baahan tahay haddaad dhaxan aragto haddaad qorax aragto haddii aad aragto raashin xumo intaba ha isdhihin shabaabaa ka sii xun intaasoo dhan shabaabaa ka sii xun intaasoo dhanna ma arkaysiinoo guryihiinaa joogtiin mase waxaa jirtiin meel dheeraa laydingeey guryihiinaa joogtiin waa isna si kartiin laakiin waxaad tihiin maanta ilaalada waddankan idinka waay waxaan kaloo idiin sheegaa qoray deegaankan ku jiro oon qoryahan ka mid ahayn hadduu jiro qoragaas ninka hees hadduu imaa waayo waxaan ka rabnaa saraakiisha deegaanka oo macaawsleyda saraakiishooda inay noo sheegaan ciddi ka diidda inay noo sheegaan waa shabaab hadduuba diido qoryahan meeshay joogaan la joogi waay waa shabaab mana uga dul qaadayna qoragana waa ka qaadaynaa asigana waa xiriynaa qoray kastoo deegaanka ayaa waa inuu ka mid noqdo qoryahan oo inuu ka mid noqdo dadkan laakiin dadkan hadduu ka maqan yahay oo maqan yahay duurka jiro waxaanu arkaynaa inuu ninkaas oo dan kale leeyahay mana ka aqbalayno dadkaanuu la meel yahay dadkaanuu ku dhib yahay dadkaanuu ku dheef yahay waa inuu la joogo dadkan haddaad idinka diida war waad noo soo sheegaysiin asigana qoragana waa laga qaadaa waana la xidhi asiga idinkuna waxaa idinka rabaa inaad soo sheegtiin ina edoorow ma jirto meesha ina edoorow waxaa intaas la joogtaa ninkii bannaankaas ka joogsaday xisbi kaloo leey iyo meel kaloo leey meesha uu leeyahay hadday naga xoog badisay joogeen haddaan ka xoog badanna anagaa joogayna meesha war kale intoo meesha ma jirto nimanka qoryaha haysto oo dadkan ka maqan oo meesha uu soo xaadiri diiday waxaanu arkaynaa inay dadka lu shaqeeyaan qoray kastoo deegaankan ku jiro waa inuu qoryaanka mid noqdo waa inuu dadkan ka mid noqdo dadkan dhib iyo dheef waxay qabaan inuu la mid noqdo shabaab iyo annaga waxaa naga dhaxayso inaan isla joogin soo maaha aad aad u mahadsantihiin